kadeedkii wuu dhammaaday kolkeenii baa la gaaray kalkii farxadda bilaabmay nuur baa mugdigii kaxeeyey. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawade ku soo dhow janaalka Dalnuursha Tube. daawada haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar, share, like iyo comment. sidoo kale daawade haddii aad hore noola joogtayne mar labaad soo dhow ayaan ku leeyahay. daawade halkan waxaan uga wada hadlaynaa qodobkan aan u wada jeedno, qodobkaas oo ah sideen horumar ku gaari karaa. waa qodob aad u muhiimsan, qof walbana uu ku fikirayo sideen horumar ku gaari karaa. daawadaha sharafta lahow, haddaba waxaan ku siinayaa 5 qodob oo kaa saacidi kara ama kuu fududeyn kara inaad horumarka gaartid noloshaada. run ahaantii qof waliba oo dunidan ku nool waxa uu jecel yahay in uu guul gaaro ama uu hadafkiisa ka dhaweeyo, balse si aan hadafkeena uga dhaweeno waxa inooga baahan yahay in aan la imaano wadadii aan u mari lahayn si aan hadafkeena uga dhameeno. haddaba waxaan idin siinayaa 5 qodob oo haddii aad sameysid hadafkaaga aad ka dhaweyn doontid insha Allah. Number 1, tala saarasho. waxaanu nahay dad muslim ah. qofku waa in uu 2 ragcadood dukadaa oo salaatul istikhaara ah. salaadaas waxa uu Ilaahay qofka kaga codsanayaa in haddii hawshan uu doonayo khayr uu u leeyahay in Ilaahay waafajiyo, haddii aanan khayr u lahayn in Ilaahay ka joojiyo. Number 2, dareen qofka oo leh karti uu ku arko meesha ay ku jirto fursad uu horumar ku gaadhayo, kadibna isku daya inuu raadiyo wixii u suurtageli lahaa si uu arrinta uga miri dhaliyo. Number 3, dhiiranaan. in uu qofka ku dhiiranaado hawshaas uu qabanayo marna uusan ka niyad jabin. Number 4, horumar. qofka inuu yahay mid jecel in uu horumar iyo wax walbo uu cusub uu sameeyo. Number 5, xiiso. qofka in aan xiiso 4 daqiiqo ah lahayn. waa inuu qofka danaynayo waxaan uu karti badan leeyahay. waa inuu noqdo qof fiiro gaar ah leh. insha Allah, daawadaha sharafta lahow, waxaan rajeynaa haddii aad qodobada sameyso in aad noloshaada horumar wacan aad ka gaari doonto. kadeedkii wuu dhammaaday kolkeenii baa la gaaray kalkii farxadda bilaabmay